halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar Facebooka YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com jimco wanaagsan saaxiibayaal dhegaystayaal waa 13 Juun 2025 Afrikada barina saacadu waxay ku beegan tahay 7 subaxnimo oo gowa qodobada idaacadana ku maqli doontaan waxa kamid ah Israa'iil oo weerar ku qaaday goobo kala duwan oo ku yaal Iran iyo cabsi laga qabo in argoosi Iran ay samayso wafaahin dheeriya oo ka soo baxaysa shil diyaaradeed oo shalay ka dhacay dalka Hindiya ka soo salfaday nolosha in ka badan 200 oo qof haddaba maxaan ku ognahay sababaha keenay shilkaas haddaba waxaa la yaab leh diyaaradda gidaarkii riliis gareeyey oo kabtankii 2 jeer inspection sameeyey oo wax bad normaal ahaayeen oo power weyn intuu siiyey uu tijaabiyey wax 30 seconds ka yar ama la mid ah markuu kacay inuu diyaaraddii uu powerkii ka dhumo oo diyaaradda powerkeedii uu dhaco dabcan taas waxaa keeni kara matoorada damay ma garan madaxweyne Cirro oo lagu wado inuu Addis Ababa booqdo dhawaan yaa ka dambeeya dhismaha xawliga ku socda ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo wararkii ciyaaraha qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan subaxnimo oo ay soo saartay Kawsar Maxamed Cabdilaahi marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdiraxmaan Cali Dembil mahadsanid liiban Israa'iil ayaa bilowday duqeymo ballaaran oo ka dhan ah Iran ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in weeraradaas oo dhanka cirka ahaa lagu bartilmaameedsaday barnaamijka nukliyeerka Iran saynis yahanada hogaaminaya iyo xarumaha ay u yaalaan gantaaladu ayuu sheegay warbaahinta dowladda Iran dhankeeda waxay sheegtay in goobada rayid deganaayeen oo dhowr magaalo ku yaala la beegsaday isla markaana waxay xaqiijiyeen in madaxii ciidamada awoodda badan ee ilaalada gacaanka ee loo yaqaan Revolutionary Guards lagu dilay falalkaas qalabada codka dhilada bixiya ayaa laga maqlayaa guud ahaan Israa'iil waxaana lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah ilaa iyo nus saac ka horna hogaamiyihii sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei waxa uu sheegay in Israa'iil ay heli doonto ciqaab adag oo ah tan ay u qalanto dowladda Mareykankuna waxay sheegtay inaysan wax luga ku lahayn weerarada Israa'iil diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka Marco Rubio ayaa uga digay Iran inay beegsato wax khuseeya danaha Mareykanka ee bariga dhexe mas'uuliyiinta Indiyana waxa ay ku hawlan yihiin xaqiijinta aqoonsiga dadkii ku dhintay diyaarad shalay ku dhacday magaalada Ahmedabad diyaaraddaas oo ay saarnaayeen 242 qof ayaa ku burburtay xaafad ay dadku deganaayeen hal qof oo kaliya ayaana ka badbaaday sida warbaahintu tabisay garsoore Mareykan ayaa isna go'aan ku gaaray in Donald Trump uu sharci darro u amray 4,000 oo askari oo ka tirsanaa ciidanka ilaalada qaranka California inay galaan wadooyinka magaalada Los Angeles xilligii uu socday mudaharaadyadii ka dhanka ahaa howlgalladii lagu qabqabanayay dadka soo galootiga ah madaxweynaha ayaa lagu amray inuu maamulka ciidamada dib ugu celiyo gudoomiyaha gobolka kaas oo ah qofka gaari kara arrimaha amni ee gobolka liiban aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Cali Dembil oo noo warramaya haatan u diyaar garooba qaybaha ka dhiman barnaamijkeena subaxnimo aan ku bilownay sidii warkabaad ku maqlayseen Israa'iil ayaa fulisay weeraro dhanka cirka ah oo ay la beegsatay dhowr iyo 10 goobood oo ku yaala dalka Iran waxayna sheegtay inay beegsatay bartilmaameedyo ku xiran barnaamijka nukliyeerka dalkaas warbaahinta gudaha Iran ayaa dhankeeda sheegtay in meelaha la weeraray ay ahaayeen goobo dad caadi ay degan yihiin oo ku yaala caasimadda Tehran hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Israa'iil ay ka shaqayn doonto wuxuu ku tilmaamay daandaansigeeda haddaba Kawsar Maxamed Cabdilaahi oo ila fadhida ayaa faahfaahintaasi noo haysa liibano ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in weerarka Israa'iil lagu bartilmaameedsaday wax uu ugu yeeray halbowlaha barnaamijka tayeenta nukliyeerka ee Iran Israa'iil ayaa duqeysay xarunta ugu weyn ee tayeenta nukliyeerka Iran oo ku taala magaalada Natanz oo qiyaastii 225 kilomitir koonfur ka xigta caasimadda Tehran ayuu Netanyahu yiri bishii Abriil ee sanadkii 2021
iiraan waxay ku eedeysay israa'iil weerar dhanka internetka ah oo lagu qaaday isla xaruntaas. waxa uu sheegay in israa'iil ay beegsatay saynisyahano reer iiraan ah oo ka shaqaynayay bamka iiraan, waa sida uu warka u dhigay. weeraradu ay sii socon doonaan uu yidhi oo macadda inta maalmood ay qaadanayaan, waxaa yidhi netanyahu. dhammaan duulimaadyadii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Texraan ayaa la hakiyey, halka duulimaadyadii magaalada Tel Aviv ee Israa'iil ku wajahnaana loo weeciyey meelo kale. afhayeen u hadlay ciidamada qalabka sida ee Iiraan ayaa sheegay in Israa'iil ay fulisay weeraradii Iiraan iyadoo taageero ka helaysa ama garab ka haysata Maraykanka, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda Iiraan. ha yeeshee xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio waxa uu sheegay in Maraykanka uusan wax lug ah ku lahayn ama uusan Israa'iil ka caawinin duqeymahaas, isagoo sheegay in keliya ay diiradda saarayaan ilaalinta ciidamada Maraykanka ee gobolka ku sugan. warbaahinta qaranka Iiraan ayaa waxa ay sheegtay in duqeymaha ay ku dhaceen xaafado ay dedegan yihiin, islamarkaana ay caruur ku jiraan dadka dhintay, inkastoo aanan si madax bannaan warkaas loo xaqiijin. mid ka mid ah ilaha dhanka amniga Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in ay u badan tahay in sidoo kale la dilay saynisyahano sare oo u dhashay dalka Iiraan. telefishanka qaranka Iiraan ayaa ku waramaya in la duqeeyey xarunta dhexe ee ciidamada ilaalada kacaanka oo ku taala magaalada Texraan, islamarkaana duqeynta Israa'iil lagu dilay taliyaha ciidamadaas Xuseen Salaami. waxa uu ka mid yahay dhowr hogaamiyeyaal sare oo ku dhintay weerarkaas. sidoo kale waxaa duqeynta lagu dilay Fariiduun Cabbaas oo ahaa madaxii hore ee hay-adda atomigada, sida ay warbaahinta dowladda sheegtay. Israa'iil waxay soo rogtay xaalad degdeg ah iyadoo sheegtay inay filayaan weeraro rogaal celis ah mustaqbalka dhow. waxaa isa soo taraya falcelinta caalamiga ah Liban, iyadoo durbe Australia sheegtay inay ka walaacsan tahay duulaanka Israa'iil ee Iiraan. sida aan warkeena hore ku sheegnayna, saraakiil Israa'iili ah ayaa waxa ay sheegeen in duqeymo lala beegsaday barnaamijkaasi nukliyeerka ee Iiraan iyo bartilmaameedyo kale oo militari oo ku yaala dalkaasi Iiraan. aad baad u mahadsan tahay. taasi waxay ahayd Kawsar Indho oo noo dulmaraysay wararkii ugu dambeeyey ee weerarka la sheegay in Israa'iil ku qaaday Iiraan. wixii ku soo kornana idaacadaheena kale aad ku maqli doontaan. dhanka kale faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa shil diyaareedad oo shalay ka dhacay dalka Hindiya, halkaasoo diyaarada ay lahayd shirkadda Air India ay ku burburtay magaalada Ahmedabad. diyaaradan oo kusii jeeda magaalada London ayaa waxaa ku geeriyooday 241 qof oo ka mid ah 242 qof oo saarnaa, hal qof oo qurana ayaa ka badbaaday. haddaba maxaa sababay in diyaaraddu burburto muddo 30 ilbiriqsiya kadib markii ay kacday? maxayse tahay feejignaanta loo baahan yahay markaan oo kale? su-aalahaas Kawsar Indho waxay weydiisay Maxamed Cabdi Guuleed Maxamed oo loo yaqaano kabtan Guuleed oo ku takhasusay maamulka duulimaadka. marka ugu horeysa diyaaradda markay intay dhulka taallo oo ayna kicin, injineer ayaa inspection ku sameeya. injineer baa buug saxiixaya, sheegaya wax walba inay diyaar yihiin, ma garat. kabtanku markuu soo galo laftiisu intuuna kicin, marka ugu horeysa motorada intuuna istaarin, inspection buu sameeyaa oo qalab gudaha ugu xiran buu ku fiiriyaa wax walba inay shaqaynayaan. markuu istaaro oo socdo oo tagsi gareeyo oo ranwayga tago, meeshuu ka kicilaa markuu gaarana mar kale ayuu jegareeyaa. flabiska, elorariska, liftiga, yoogga, brekiska, radariska, waxaasoo dhan buu inspection ku sameeyaa oo wuxuu xaqiijiyaa wax walba inay sidii loogu talagelay ay yihiin. markuu halkaa maraya kadib ayuu taawarka weydiisanayaa inuu diyaar yahay inuu duulo. taawarka markuu ogolaadana taawarkuu diyaaradda siinayaa, wuu soconayaa. orodka markay qaada diyaaraddu waxaa jira 2 speed oo V1 iyo V2 la kala yidhaahdo. V1ka waa speedka hore, haddii inta V1ka aan la gaarin ama la gaaro intaadan V2 gaarin, diyaaradda ay wax ku yimaadaan halkaasay ku joojinaysaa. brekiska la garanaysaa, baawarkaa goynaysaa, ma garatay. haddii V2 la gaaro oo speedkii ugu dambeeya diyaaradda ku kicilaad ay qaadato, rotation speed baa la yidhaahdaa. waxaa khasaba kabtankaas inuu kaco xataa haddii motoradu ka damaan. haddaba waxaa la yaab leh, diyaaradda injineerkii riliis gareeyey oo kabtankii 2 jeer inspection sameeyey oo wax bad normaal ahaayeen oo power weyn intuu siiyey uu tijaabiyey wax 10 seconds ka yar ama la mid ah markuu kacay inuu diyaaraddii uu powerkii ka dhumo oo diyaaradda powerkeedii uu dhaco. dabcan taas waxaa keeni kara motorada damay, ma garat. haddii ranwayga diyaaraddaas Ahmedabad la yidhaahdo hadduu aad u dheeraan lahaa, kabtanku waa digniin horuu talay. digniin horuu helay waa markiiba riboorgareeyey. waxaa suuro geli lahayd
inuu diyaaradda dejiyo oo isticmaalo runwayga inta ka hadhay ayaa dhulka kale oo clear wayga la yidhaahdo oo runwaygu markuu dhammaado arbaarka usii bannaan haddii xataa diyaaradda wax gaaraan markaas basajeerigu waa cayman lahaa ma garan haddaba arrintaas ah in diyaaradda intaa soo martay ay awoodi kari weydo in laga gaaro oo intayna kicin oo markay kacdo isla markiiba la badbaadiyo waa arrin xoogaa muujisaha ma garatay dadka qaar ee ku xeel dheer arrimaha duulimaadyada waxay sheegeen inay macquul tahay in shilkani uu qayb ka yahay agabka ku rakiban baalasha diyaaradda ee markay kacayso iyo markay degayso ka caawiyo oo plane philipska loo yaqaano taa marka suuragal ma tahay qaybta ugu weyn oo diyaaradda ama demisa ama ridda waa arrintaas matoorada iyo lifka waxa kaloo dhan waxay noqonayaan secondary primariga lift foreska ama thrustiga soo saara waa injinka iyo baallaha waaweyn injinkuna wuxuu soo saaraa xoogga horsocodka baalluhuna xoogga koruqaadidda oo bresharka baalka korkiisa hoostiisa ka dhacaya ayaa diyaaradda kor u qaada salaabiska marka waa dhici kartaa marmar laakiin primary problemku waa matooradaas baawarkii la rabay soo saari waayey waxaa suuro geli lahayd in la yidhaahdo diyaaradda waxbaa ku dhacay oo ama toogashaa dhacday ama wax kaloo la mid aha dhacay ama bumbaa ku qaraxday laakiin nasiib wanaag taas waxaa diidaya in kabtanku riboorgareeyey in uu baawarkii waayey marka waxaan meesha ka saaraynaa diyaaradda in wax kale ku dhaceen oo ama xabad ama qarax ama bumba ama wax la mid ah aan meesha ka saaraynaa marka waxay noqonayaan pilot errorna ma noqonayso oo waxa waaye pilotki wuuba sheegayba inuu awoodtii waayey kicidda marka arrintu waxay ku soo ururaysaa technical oo diyaaradda ah ama qalabkeeda ah ama motoorkeeda ah ama baalkeeda ah ama wax la mid ah ayaga laftoodana marka hadda diyaaraddan waxay ku fiican tahay already waxay ku dhacday halkan waxaa la eegayaa isla markaba waxaa loo yaqaano flight data recorder ama black boxka waxaa la yidhaahdo sanduuqa madow iyo cockpit voice recorder geedka codka duuba pilotska labadaas 80% waxay sheegayaan diyaaraddan cilladay u dhacday ama motoor ha noqoto ama flabis ha noqoto ama xabad ku dhacday ha noqoto ama wax kale ha noqoto nasiib wanaag kuwaasna meesha lafteeda laga helayaayo diyaaraddan hadday badweyn ku dhici lahayd ama haya altitude ku dhici lahayd waxaasoo dhan lama heleen maxay tahay marka fajignaanta loo baahan yahay si looga baaqsado shilalka noocaan oo kale ah fajignaanta koowaad waxaa weeye horta nimanka injineerada ah diyaaradahan horta bointa diyaaradda tan hadda dreamlinerka ah 787 waa diyaarad serali waa cusub tahay diyaaradda kaleetoliya max 737ka labada deerood way cusub yihiin waa diyaaradihii dambe oo diilka dambe loo bixiyey ma garat diyaaradihii horeeto oo 777ka iyo 707 iyo 747 iyo la keli wuu yaraa shilalkooda runtii marka dee qalabkaas tirada badan oo kala nooc ah oo luxuriga ah miyaa ishardiyey waa dhici kartaa inay keenaan erar laakiin haddii la rabo in laga hortago waa in horta dhulka injineerada diyaaradda riliis garaynaya marka horeba oo grand staffka ah inay ka taxadaraan wax kastoo probable cost oo keeni kara in diyaaradda cilladu ku jirto haddana kabtanku extra careful waa inuu ahaadaayo labada inspection uu marayo sidoo kale aad uga taxadaro kaasi wuxuu ahaa cabdi guuleed maxamed kabtan guuleed oo u warramayey kawsarindo madaxweynaha jumhuuriyadda iskeed madaxbannaanada ugu dhawaaqday ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa lagu wadaa inuu dhowaan booqdo magaalada addis ababa ee dalka etoobiya haddaba waxaa laga filan karo socodkaasi ama socdaalkaasi ayaa saleemaan saxansax wuxuu ka waraystay axmed saki faarax iidle waxaan dusha sare ka taaganahay mid ka mid ah dhismayaasha ugu dheer magaalada muqdisho waan ka xunnahay codkaasi waa noo soo socdaa laakiin hadda aan ugu tagno madaxweyne ciro codkiisii barnaamijkii waraysiga la xiriiray muhiimad gaara ayuu leeyahay guud ahaan somalilan gaar ahaan xukuumadda hadda joogta oo rabta diblomaasiyaddii dowladdii iyada ka horreysa kulmiye ay ku waday nidaam ka duwan inay u approach garayso Ethiopia safarkan laba faa'iido uu keeni doonaa in horta dib u eegis lagu sameeyo heshiisyada ganacsi ee hore u dhex jiray Somaliland iyo Ethiopia ay ballan qaaday xukuumadda wadani in ay dib u eegis ku sameyn doonto Axmed Saki maxaa laga filan karaa safarkan madaxweynaha Somaliland oo sheegay dhawaan inuu ku tagi doono dalka Ethiopia waxaan ka filaynaa imika in sharaxaad laga bixiyo
mowqifkii ay ka taagnayd dowladda Somaliland hadda xukuumadda cusubi in heshiiskii 2024 ku dhex maray xukuumaddii hore kulmiye iyo dowladda federaalka Itoobiya kaasoo isafgarad ahaa laakiin heshiis rasmi aan noqonin in sharaxaad laga bixiyo marka haddii isbedel ku imanayo isbedel intee leg baa ku iman doona Somaliland aragtida xukuumadda cusub ay qabtaa isbedelkaasi intuu leekan doona Itoobiya iyagu ma ku heshiin doonaan waxba laga bedeli doonaa su'aasha ugu badan ee maskaxda dadka ku soo noqon doonta laga rafalay inay xukuumaddu inay ka jawaabto safarkaasi markuu soo dhamaado ay noqon doontaa taas marka waa koobaad aan rajeynayno inuu ama positive noqdo ama uu negative noqdo depends on marka wixii ay ku heshiiyeen labada maamul dhanka kale waxaynu ka filaynaa in page cusub oo diblomaasiyadeed inuu furmo sidaynu ognahay xukuumaddani xagga nabadeynta iyo diblomaasiyadda waxaad moodaa inay ku dhiiran tahay talaabo fiican oo dhanci Djibouti laga qaaday in la isku soo dhaweeyo khilaafkii soo kala dhex galay xukuumadda Djibouti iyo Somaliland in kor loo soo qaaday xiriirkii u dhaxeeyay Kenya iyo dowladda Somaliland oo kor u soo qaaday kadib markii madaxweynuhu booqday marka laga hadlayo isfahamkii Somaliland iyo Ethiopia ilaa imika ma fulin halkii uu taagnaa 2024 markii is-afgaradka la saxday ayuu wali taagan yahay suurtagal ma tahay in labada dhinac ay heshiis rasmi ah u bedelaan ama laga wada hadlo waxay ku xiran tahay horta ballanqaadkii uu ballan qaaday madaxweyne Cirro wuxuu ahaa in daraasad ku sameyn doonaan heshiiskii laga tagay oo uu ku wareejiyay madaxweyne Muuse marka madaxweynihii hore Muuse bixi heshiiskii ku wareejiyay waqti ku filan oo ay ku daraaseeyaan way heleen marka hadda 5 bilood 6 bilood baa almost ka soo wareegtay xilligii la doortay 6 bilood xilli ay go'aan ku gaari karaan ay ku darsi karaan way tahay marka wixii ay faa'iido u arkaan iyo wixii ay khasaaro u arkaan bay inay imika kala hadlaan dowladda Itoobiya taas marka waxa soo cadaan doonta inay heshiiskii sidii uu ahaa lagu hirgeliyo oo agreement rasmi noqdo iyo in wax ka bedel lagu sameeyo oo dib u eegis lagu sameeyo marka taasina waxay ku iman doontaa habka ay isku fahmaan iyagoo labada dhinacba ilaashanaya danahooda u gaarka marka Somaliland national interest-keeda iyadoo ilaashanaysa Ethiopia national interest-keeda iyadoo ilaashanaysa sidii la isku waafajin lahaa haddii tusaalahaan arrintaasi isfahamkii hore laga hadlo oo mar kale Ethiopia iyo Somaliland ka wada hadlaan ma soo celin kartaa xiisadii geeska Afrika ee markii is-afgaradka la gaaray ka abuurantay waa laga yaabaa waxay ku xiran tahay habka diblomaasi ahaan loo wajaho hadduu lagu wado low profile oo aan loo durbaanatumin oo aan lasoo bandhigin oo aada loo buunbuunin waxaa laga yaabaa in si diblomaasiyeysan xeeladaysan inta loo fuliyo deetana labada dhinacba benefitkoodii ay helaan haddii ay xaaladda dejiyaan oo si diblomaasiyeysan xeeladaysan oo undercover lagu dhameeyayna ahlan wa sahlan haddii ay go'aansadaan in ay labaduba ku dhiiradaan inay talaabo bold ah qaadaan sida xukuumaddii kulmiye oo kale laakiin Ethiopia moodaysa inay cagajiidayso waxay iman doontaa markaa in talaabo taa ka duwan looga talaabsado marka laga hadlayo Somaliland iyo Ethiopia arrimaha kale laga hadli karayo ee ah in laga wada hadlayo safarka madaxweynaha waxa kamid ah arrinta ammaanka iyo dhinaca ganacsiga oo kale ma jiri karaan heshiisyo dhinaca ganacsiga dhinaca amniga oo kale dhex mari kara Somaliland iyo Ethiopia heshiisyo cusub bay rabtaa oo ay ballan qaaday oo ballanqaadkii madaxweynaha iyo manifestadii xisbiga wadani ku jirtay ballanqaadyadaasi markaa waxay ka mid ahaa in ganacsatada reer Somaliland ee raba inay maalgashadaan wadamada dariska loo fudaydiyo waxay u badan tahay marka in heshiis laga soo gaari doono ugu dambeyntii safarkan madaxweynuhu muxuu uga dhignaan karaa soo kartaa Somaliland iyo Ethiopia xiriirkoodii ka dhaxeeyay maadaama oo madaxweynuhu u xushay Ethiopia in uu saddex wadan oo hore ka horreysiyay safarada inta badan madaxda Somaliland ku tagi jirtay Ethiopia waa fariin diblomaasiyadeed oo cad oo ah inaanay Somaliland wadan gaara si gaar ah aanay ugu tiirsanayn cadaawad u dhaxaysa oo cusub oo Ethiopia iyo Somaliland u dhaxaysana inay jirin laakiin Somaliland inay u madax bannaan tahay meeshii ay danaheeda ka aragto iyadoo aan cid kala tashan Dr. Axmed Saki Farax Idle oo u warramayay Salmaan Saxan Saxa ayuu kaasi ahaa halkaad nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba isla wararkii Somaliland ayaan ku jirnay wufuud ay ka tirsan yihiin wasiirka cadaaladda iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ayaa dhawaan waxa booqdeen dalka Sweden halkaas oo cusumad ay ka heleen haddaba faahfaahinta kulankaasi waxyaabaha looga wada hadlay waxaa noo haya oo waraysiga noo qaaday كوثر محمد عبد الله وحنا ورئيسة يونس أحمد يونس BBC waa mahadsantiin safarkayga Sweden anigii wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Somaliland waxaana casuumad rasmi ka helay dowladda Somaliland ay ka heshay gaar ahaan
wasiirka cadaaladda aniga iyo wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha waxaan casuumad gaara ka helay baarlamaanka Sweden iyo dowladda Sweden. Kulankeeguna iyo safarkeeguna wuxuu daaranaa sidii aanu xiriirka Soomaaliland iyo dowladda Sweden aanu sii xoojin lahayn ogona wada shaqayn lahayn xiriirkii muddada dheer dowladda Soomaaliya iyo dowladda Sweden lahaayeen kaasoo daaranaa anaguna kaasaanu dabaqaynay oonu doonaynay inaanu sii xoojino. marka safarkii koowaad weeyaane inta dowladda cusub ay timid inay u soo baxdo qaaradda Yurub. wasiir kulan gaar ah ayaad la qaadateen gudoomiyaha baarlamaanka waddankaasi Sweden xoojinta xiriirka ka sokow maxaa kale oo aad ka wada hadasheen? waxaan aad u faraxsanahay inaan la kulanay gudoomiyaha baarlamaanka waddanka Sweden oo gabadh ah oo si weyn noo soo dhaweysay oo si weyn u taqaana jamhuuriyadda Somaliland taariikhdeeda si fiican u haysa iyo xubno dhowr iyo 40 xildhibaan oo baarlamaanka Sweden oo xisbiyada aqlabiyadda ah ee talada dalka haya. kulamada waxay daarnaayeen kulamo shaqo oo wasaaradda cadaaladda haddaan ka hadlo waxaan ay ballan qaadeen inay nagala shaqaynayaan sidii loo horumarin lahaa si guud cadaaladda Somaliland, xabsiyada sidii loo casriyeyn lahaa. arrimahaasoo dhan bay nagala hadleen. waxay nagala hadleen in dhalinyarada Somaliland fursado loo abuuro oo mar haddii wasiirka dhalinyarada ciyaaraha wada soconay oo waftiga qayb ka ahaa inaanu ay dhalinyarada Somaliland ay fursado u abuuraan. marka kulamo shaqo oo aad ugu faraxsanayn inoo horkareen. wasiir waxaa jira warar la isla dhexmarayo xagga baraha bulshada oo ah in qaxooti laga soo musaafurinayo Sweden in aad qaabilaysaan oo arrintaasna aad kala hadasheen. marka taa maxaa ka jira? Somaliland wax imika bilaabay maaha, waa dowlad muddadii jirtay dunida la macaamisha. horena uma dhicin in dad qaxootiya oo lasoo mustaafirinayo ama lasoo jujuubayo dalalka kale laga keenayo Somaliland la keeno. horena ma dhicin, imikana dhici mayso. dadka Somaliland ama dadka Soomaaliyeed iskood u imaanaya Somaliland oo imaan kareen Somaliland, laakiin ma jirto dad lasoo xilinayo ama lasoo waaridayo oo sharci ahaan ama qaxoonti ahaadaan ama cid kale ahaadaane oo jujuub Somaliland lagu keenayo. Somaliland waa dal dastuur leh, xeerar leh, marka sinaba ma jirto dad la keeno jujuub iyo mustaafirin lagu keenaya. gadaal lama dhacayso insha allahu tacaala, laakiin qof walba oo xor ah oo Somaliland doonaya inuu yimaado oo ku noolaado dunida meesha jooga waa u xor u imaan karaa iyadoo xeerarka iyo sharciyada dalka Somaliland loo eegiyo kuwa caalamigaana ah la eegi. waxaa kaloo la sheegay in aad sidoo kale ka wada hadasheen in baarlamaanka Sweden ay xildhibaano u dirayaan Somaliland. bal halkaa noo faahfaahay. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in xildhibaanada ugu badnaa qaaradda Yurub aan kala kulannay kuwa Sweden ay yihiin qaar u ololeynaya qadiyadda Somaliland oo ay dunida gaarsiinayaan ay baarlamaanka Yurub keeni doonaan iyakuna ay imaan doonaan Somaliland dhowaan insha allahu tacaala. waan ku tala jirnaa maadaan oo kala shaqaynaynaa anaguna ku faraxsanahay inay imaadaan. markay imaadaan insha allahu tacaala ayaan soo dhaweyn doonaa, si weyn usoo dhaweyn doonaa. xildhibaano badan oo lambar badan ayay ballan qaaday inay imaanayaan. yunis axmed yunis oo u waramayay Kawsar maxamed cabdullaahi iyo kaasi ahaa. haatan muqdisho, magaalada muqdisho oo in muddo ahba magaceedu ku lamaanaa dagaallo iyo weliba burbur iyo fowdo ayaa hadda waxay u jeesatay baa laleeyahay dhanka horumarka, gaar ahaan dhismayaasha casriga dabaqyada ka kooban halkaasoo xafiisyo iyo guryo degaan baa laga dhiso. haddaba dhismahan xawli ku socda dadka hogaaminaya amaba ku jira howlahooda laba injineero ka mid ah ayaa waxaa la kulantay wariye Firdowsi Xaashi oo halkaasi dhawaan booqatay warbixintaana nooga diyaarisay. waxaan dusha sare ka taaganahay mid ka mid ah dhismayaasha ugu dheer magaalada Muqdisho. codadka shaqaalaha ka shaqaynaya dhismayaasha iyo shanqarada mashiinada qodaya dhulka iyo weliba wiishashka xamuulka culus ee dhagaxa iyo shamiintada dabaqyada sare saaraya ayaa ka noqday wax caadi ah magaaladan. gudaha xaafadda Taleex ee degmada Hodan ee caasimadda Muqdisho, laba gabdhood oo injineero dhalinyaro ah oo la kala yiraahdo Fatxi Maxamed iyo Sacdiye Axmed oo labaduba 24 sano jir ah ayaa kormeeraya mashruuc weyn oo dhismaha guri dabaq ah
oo ka kooban 10 biyaano. goobtan oo horey u ahaan jirtay dhismo duug ah oo dayacan maanta waxay noqotay meel mashquul ah oo ku dhex taala dhismayaal kale oo ku jira marxalado kala duwan oo dhismo ah. Fatxi iyo Sacdiyo waxay taagan yihiin bartamaha howlaha dhismaha socdo. runtii magaalada sidii hadda tahay ma ahayn dagaalo iska jiray dhismaheedu wuu yaraay ma ahayn magaalo oogay soo dhismaysa ma ahayn laakiin iminka markii loo fiiriyo sidii hore waxa dhigi karnaa 90% way isbedeshay. waxa igu dhaliyay in aan ka mid noqdo injineerada ama aan barto kulliyadda engineerinka waxay tahay wadankeena oo ka soo kacaya burbur badan oo u baahnaa in si wanaagsan oo qurux badan aan u dhisano anigana waxay ahayd hobby in aan barto kulliyadda engineerinka. Fatxi iyo Sacdiyo waxay ka qayb qaateen in ka badan 30 mashruuc oo malaayiin dollar ah tan iyo markii ay bilaabeen shaqadooda 5 sano ka hor. laakiin maadaama dumarku ay kaliya yihiin 5% injineerada Soomaaliyeed in ay ku biiraan xirfadan ma aysan ahayn hol fudud oo ay si sahlan ku gaareen. falcelinta aan bulshada kala kulmay waxa kamid ah inay yiraahdaan macnaha guri gabar ay dhistay sidee u dagayn u seexanayna inay yiraahdaan macnaha ma la isku haleyn kara gurigan oo musii taagnaana sidii in oo muxuu ahaay tolo markii aad dhamayso u dumayo kale waxa kale oo kamid ah inay yiraahdaan see macnaha ugu aaminna gabar oo u qabanaysa macnaha shaqadii oo loogu talagalay inuu nin qabto. Kiyaan internship ka raadinayay oo last year ka ahay jaamacadeyda kambaniyal waaweyn ka raadiyay internship say isiyaan waxyaabihii ugu badnaa oo liidahayna waxay ahayd aniga gabdhi ma siino internship totally for almost 3 months waa raadinayay sa internship ku heli lahaay. labadooduba waxay ku qasbanaayeen inay jabiyaan xaduudo dhaqan si ay meesha ay maanta joogaan u gaaraan. laakiin sida muuqaalka magaalada uu isku bedelayo ayay xirfadana sidoo kale isku bedelaysaa. Ibraahim Cabdi Xayle gudoomiyaha ururka injineerada Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay in la doonayo dadaal dheeraad ah si loo dhiirigeliyo gabdhaha injineerada Soomaaliyeed. ururkan wuxuu yeeshay door weyn ama wuxuu u diyaariyay qorshe cad lagu taageerayo gabdhaha. waxaan u sameyn doonaa projectyo ayaga u gaar ah lagu support gareynayo taa aan ugu raadi doono aan dhahin donorska iyo international organization caalamka si ugu saacidaan gabdhaha xirfadan loo empower gareeyo door weyn ugu ciyaaraan. inkastoo ay Soomaali badan doorteen inay dalka ka tagaan labadan gabdhood ee dhalatay xilligii dagaalka sokeeye ka socday Soomaaliya waxay doorteen inay dalkooda joogaan iyagoo ay ka go'an tahay dib u dhiska dalkooda. iyagoo ka gudbay caqabadahan oo dhan Fatxi iyo Sacdiyo waxay cadeynayaan in dumarku aysan kaliya dhisi karin dhismayaal balse ay sidoo kale qaabeyn karaan mustaqbalka Soomaaliya. Fardoosa Xanshi, BBC, Muqdisho. aad buu mahadsan tahay Fardoosa waqtiga oo nahay darteeda xubintaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddan subaxnimo oo saakay 7 soo bilaabatay. waxaa muhiim ah in maanta ay jiraan warar aad u waaweyn oo website-yadeena ay mashquul yihiin. dhegeystayaasha waxaan u sheegaynaa in wararka la xiriira Israel iyo Iran dagaalka ka dhex qarxay iyo weliba dhanka Hindiya iyo caalamka oo dhan ay ka heli karaan website-keena bbcsomali.com. tan iyo intaanu idaacadda soo socota isku maqlayno nabaday.